ama akhriya buugii la magac baxay dhaqan iyo dhigaal iyo dhaxal waayo arag ruuxaantii buuggaas oo ah buug ka turjumaya micnaynaya dhab ahaan waxay yihiin ummadda Soomaaliyeed kaasoo uu qoray qoraa la yiraahdo Xuseen Cismaan Saalax ruuxaantii buugga kan oo ah buugay ku dheehantahay xigmad aad u badan haddii aan wax yar ka soo qaato waxa halka ku qoran maansa geediga nin raray wado golaha uu agaasimay iyo soo gabraartaha soo gunaystay erayada goob laguma wada furo anaa gaasa bixiye goobayda maansada waxaan uga galeeyahay gudcur laguma doorsado waa galalac soo yiri gayigeena hodanka geestaad ka eegtaba nimcadii isgarabtaal wabiyada isgees mara gacmada biyaha shuba lagu waraabshay geedaha gayigeenu Soomaaliyeed buugga dhaqan iyo dhigaal dhaxal waayo arag waa buug ka sheekeynaya dhaqankii Soomaalida ee suulay buuggu wuxuu ka warbixinayaa waxyaabo badan oo ka mid ah dhaqankeenii hore run ahaantii buugga dhaqan iyo dhigaal dhaxal waayo arag waa buug aan dhihi karo wuxuu soo baxay waqtigiisii waa buug aan dhihi karo waqtigii loo baahnaa ayuu yimid buugga dhaqan iyo dhigaal dhaxal waayo arag waxa la soo bandhigayaa habeenka jimcadu baxayso sabtiduna soo galayso 12ka bisha afraad 2019 waxa lagu soo bandhigayaa hoolka Mabalif ka soo horjeedka wakaalada biyaha ee Gumco reer Boosaaso Jaanis baa haysataan Jaaniskina ka faa'iideysta waxaad gacanteeda ku hayaa buugga la magac baxay dhaqan iyo dhigaal ama dhaxal waayo arag oo qoray aqoon-yahan Xuseen Cismaan Saalax runtii uu ka hadlay dhaqanka ummadda Soomaaliyeed oo maadaama ummad kasta ay leedahay dhaqan iyo wax u gaara runtii waa dadka moodbaryahan dambe dhaqankooda ay ka tageen isagoo galiijoodi badan soo dadka uu adeeraysiyo dhaqanka iyo waxa iyagu ay leeyihiin runtii waa buug qiimaha isle runtii waa buug u noqon kara wehel ummadda Soomaaliyeed dhamaan gaar ahaan ummadda reer Puntland buugga kan aan gacanta ku hayo waxa la yiraahdaa dhaqan iyo dhigaal iyo dhaxal waayo arag buuggan authorka qoray waxa la yiraahdaa Xuseen Cismaan Saalax Xuseen Sanaag buu ku magac dheer yahay qoraaga buuggani wuxuu ka hadlayaa dhaqankii iyo dhigaalkii Soomaalida iyo dhaxallo waayo araga waxyaalo dhaxal gala oo Soomaalidu lahayd isla markaasna ay ka awoowe isaga dhaxleen waxyaalaha aan intii yarada iminka aan detailka buuggan akhriyay iyo cajab geliyo ama aan ka helay ama aad aan interest garanay inaan buuggan gato ama aan qaato isla markaasna aan wax badan ka ogaado waxa ka mid ah dhaqankii Soomaalida iyo caadooyinkii hore u lahaan jireen waxa kale oo ka mid ah hab dhaqanka guurka Soomaalida oo ahaa boontiyo aad u cajiiba oo marka la eego dabar go'aya ka Soomaali ahaan iyo ka dhaqankeeni ahaan waxa aynu ka tagayno uu noqon karo geediga nin raray wado golaha uu agaasimay iyo soo gabraartaha soo gunaystay erayada goob laguma wada furo waa nuqul ka mid ah dhiganaha dhaqan iyo dhigaal dhaxal waayo arag bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xuseen Cismaan Saalax Xuseen Sanaag qoraaga dhiganahan aad arkaysaan dhaqan iyo dhigaal dhaxal waayo arag runtii wuxuu ka sheekaynayaa hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed waxaana ku soo bandhigi doonaa magaalada Boosaaso gaar ahaan hoolka Mabalif ka soo horjeedka warshada biyaha ee Gumco 12ka bisha jimcuhu maalinta uu baxayo habeenka sabti soo galayso saacadu markay tahay 6:00 fiidnimo ka soo qaybgal wanaagsan baad leeyahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan Thank you.